xiisada u dhaxaysa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo bilyaneerka tiknoolajiyadda Elon Musk ayaa gaartay heerkii ugu xumaa waxaana soo afjarmay isxulufaysigii u dhaxeeyay hogaamiyaha ugu awoodda badan caalamka iyo ninka ugu taajirsan dunida. In muddo ahba Elon Musk waxa uu taageero weyn u ahaa Trump si gaar ah intii lagu jiray ololaha doorashada 2024 isagoo ku deeqay in ka badan 250 milyan oo dollar kadib markii uu Trump guuleystana waxaa loo magacaabay agaasimaha waaxda hufnaanta dawladda ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano DOGE taa oo Trump aasaasay si loo yareeyo qarashaadka dawladda. hase ahaatee Elon ayaa iska casilay toddobaadkii hore mas-uuliyaddaasi kadib caradii uu ka qaaday sharciga canshuuraha iyo qarashaadka. Musk ayaa qashinka ku daray sharciyada uu saxiixay Trump gaar ahaan hindis sharciyeedka qarashaadka waxaana dhaleecaynta Elon Musk uu u jeediyay sharciga canshuuraha iyo qarashaadka ee Donald Trump uu noqday udubdhaxaadka khilaafkooda iyo halka uu ka aloosmay. Elon Musk ayaa si cad u sheegay in miisaaniyaddan cusub ay kordhin doonto deynta Mareykanka taasoo khatar ku noqon karta dhaqaalaha mustaqbalka. Elon Musk ayaa ku baaqay in Trump la soo galo joojiyo isagoo sidoo kale ku hanjabay inuu dadejinayo joojinta dayax-gacmeedka Dragon kaas oo dawladda Mareykanka ay ku tiirsan tahay sicir bixiyeenada Mareykanka sahaydooda loo geeyo hawada sare. hase ahaatee saacado kadib maalqabeenka ayaa ka noqday hadalkaasi isagoo sheegay inuusan joojinayn Dragon. Elon Musk waxa uu tilmaamay inuusan kala jeclayn lacagta lagu kabo shirkadiisa gawaarida isagoo tibaaxay inuu doonayo in la yareeyo deynta dalka. maalqabeenkan ayaa toddobaadkan ku qaaday Trump dhowr weerar. dagaalka labada nin ayaa iminka gaaray meel qaraar waxaana Elon Musk uu ku baaqay in Trump xilka laga xayuubiyo isagoo weerar kulul adeegsaday. dhanka madaxweynaha Trump waxa uu ku tilmaamay sharcigan mid weyn oo bogaadin mudan wuxuuna yiri waxa ku jira canshuur dhimis la dheereeyay sharciyo adag oo loogu talagalay cidda heli karta kaalmada dawladda dhexe iyo kor u qaadida xadka ugu sareeya ee dawladdu u ogolaanayso sharci ahaan inay amaah qaadato si ay u bixiso qarashaadkeeda. Trump waxa uu sheegay inaysan waxba ka jirin eedaha Elon Musk wuxuuna iska diiday fikradda la xiriirta in doorashada uusan ku guuleysan lahayn haddii uusan helin taageerada Elon Musk iyo malaayiinta dollar. Trump ayaa carabka ku dhuftay in Elon Musk uu hadda gaaray kuleelka sababtuna waa shirkadda gawaarida Tesla oo dhaawac soo gaari doono. sida la wada ogyahay Elon Musk iyo Trump waxay sameysteen isbahaysi xoog badan. waaxda dawladda ee Musk ama DOGE waxay noqotay sheekada ugu weyn boqolkii maalmood ee Trump ugu horeeyay xafiiska. qiyaasaha ayaa muujinaya in sida uu hadda yahay sharciga inuu kordhin doono miisaaniyadda dayaca oo ah farqiga u dhaxeeya waxa ay dawladdu qarash garayso iyo waxa soo gala oo qiyaastii noqonaysa 600 oo bilyan sanad maaliyadeedka soo socda. Trump waxa uu goodiyay ganacsiga weyn ee Elon Musk la leeyahay dawladda federaalka kaasoo halboolo u ah barnaamijka dayax-gacmeedka X. habka ugu fudud ee aan lacag ku badbaadin karno balaayiin dollar waa inaan joojinaa kabista dawladda ay u samayso Elon iyo qandaraasyada la siiyo ayuu Trump soo dhigay bartiisa bulsho waxaana arrintaasi ay utun ku noqotay Elon Musk oo durba xanuunku gaaray iyadoo ay xusud mudan tahay in saamiga shirkadiisa Tesla ay talaadadii hoos u dhacday 14%. sida ay falaqeeyaashu sheegayaan Elon Musk guul kama gaarayo haddii uu dagaal la galo maamulka Trump oo dhan balse dhaqdhaqaaqiisa ayaa la rumaysan yahay in Trump uu ku keeni karo khasaare dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Trump oo arrintaasi maskaxda ku haya waxa uu muujinayaa dabacsanaan iyo inuu qaboojiyo dagaalka isagoo ka fogaaday inuu ka hadlo Elon Musk munaasabad ka dhacday aqalka cad wuxuuse diiradda saaray oo qura xeerkiisa canshuuraha iyo qarashaadka. dhinaca kale xisbiga dimuqraadiga ayaanan meelna raacsanayn qaarkood waxa ay u muuqdaan inay soo dhaweynayaan Elon Musk oo hore xisbigooda deeq u siin jiray. iminka dimuqraadiyiintu waa kuwo ku faraxsan inay dib u istaagaan iyagoo isku fiirsanaya labada nin iyo oraahyada kulul ay isdhaafsanayaan. dhanka kale waxaa jira warar sheegaya inay socdaan dadaallo ay wadaan qaar ka mid a kaaliyaasha aqalka cad si ay heshiis u dhex dhigaan Elon Musk iyo Trump balse lama filayo in khilaafkan uu degdeg ku dhammaado. sida la xasuusto xildhibaanada aqalka wakiilada ee jamhuuriga ayaa si ciriiri ah u ansixiyay sharcigan bishii May taasoo Trump u ahayd guul weyn oo u soo hoyatay bishii la soo dhaafay balse sharciga ayaa hadda u gudbaya aqalka sanadka kaas oo fursad u heli doona inuu ansixiyo ama uu wax ka bedelo qodobada ka hor inta uusan gaarin miiska Trump. dagaalka u dhaxeeya Elon Musk iyo Trump ayaa muujinaya in siyaasadda iyo ganacsigu ay isku dhex milmeen gudaha Mareykanka. khilaafkooda ayaa yeelan kara saameyn ballaaran oo siyaasadeed dhaqaale iyo dhaawac soo gaara mustaqbalka shirkadaha ay madaxda ka yihiin.